بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعنا ونكسن داود ولا حد كسر دواتان برامجك توب نيوز وأربعة صدحي لباتن كبيش لباكون لباتن إلا بقضاء بدأ حساب بدنا تكون داود دونتان برامجك توب نيوز وحاكم النقطة دونا وجميع هراء تري لايونس ريال مدريد يكو حواوير وقارض يوروبا فابيو كابيلو دلعان وسوجيدي حد جلسية يحول كبلجيم رومانيا لوكاكو كاسو بندقلي تكوسو بندق جرومدا دوسان فلاها فيج حد كدوان قلكا يناديك يوفنتوس oo noqday xidigii ugu horeeyay ama xidigii dhaliyay goolka ugu dhaqsiyaha badan ee tartanka Champions League sanadan waa kee xidiga qarniga 21aad afar horyaal oo kala duwan ka dhaliyay saddexley barnaamijka ayaan ku soo qaadan doonaa Chelsea oo noqotay naadiga kaliya ee 5 guul oo xiriir gaartay tartamada Yurub ayadoo shantaasiba garoonkeeda aan wax gool looga dhalin qodobadaas iyo qodobo kale ayaad barnaamijka ku daawo doontaan anigoo daahir ayaan la socodsiinay Liibaan ay farsameynaya oo mar kale iyo top news hogaamiyihii hore ee xulka Three Lions Real Madrid iyo kooxaha waaweyn oo qaaradda Yurub Fabio Capello ayaa dhaleeceyn kala dul dhacay xidiga reer Chelsea iyo wadanka Belgiumka ee Romania Lukaku kaas oo waayihii dambe bandhigiisu u liitay Fabio Capello oo ka hadlayay ciyaartii xalay Chelsea ay la ciyaartay naadiga Lille ayaa sheegay in Romania Lukaku uu qalmin inuu matalo naadiga Chelsea Romania Lukaku oo ah xidiga ay Chelsea kala soo wareegtay xilciyaareedkii hore ee naadiga Inter Milan ayaana bandhigiisa aad loo dhaleeceynaya Romania Lukaku ayaana la kulmaya dhaleeceyn kala duwan kaas oo kala kulmayo macallimiin iyo falaqayaal kala duwan oo kubadda cagta dunida ah xidiga dhawaan galka naadiga Belgrano Pierre-Emerick Aubameyang ayaa noqday xidiga kaliya ee shanta horyaal ee qaaradda Yurub afar kamida qarnigan ka dhaliyay goolasha loo yaqaan saddexleyda Aubameyang oo Barcelona sanadkan kala soo wareegtay ama xil ciyaareedkan ay kala soo wareegtay naadiga Arsenal ee reer London ayaana saddexley gool ka dhaliyay naadiga Valencia kulan ka tirsan horyaalka La Liga dalka Spain Aubameyang oo dhaliyay saddexley gool ayaa ka dhigan in uu noqday xidiga kaliya ee qarnigan 21aad afar kamida shanta horyaal ee ugu waaweyn ee qaaradda Yurub saddexley gool ka dhaliyay Aubameyang ayaana hore uga soo dhaliyay saddexley gool horyaalada kala ah Faransiiska Premier League oo matalay naadiga Arsenal iyo sidoo kale xilligii uu ku sugnaa naadiga Borussia Dortmund oo ka ciyaartay horyaalka Jarmalka iminkana waxaa loo diiwaan galiyay 3 gool oo uu ka dhaliyay naadiga Valencia walow gool kamid ah uu dood badan dhaliyay oo loo qoray xidiga markii hore loo qoray xidiga Bedri balse markii dambe ayaa shaashadaha caalamka dib loo daawaday taasoo goosha Aubameyang loo xaqiijiyay xidiga dhawaan galka ah naadiga Juventus Dusan Vlahovic ayaa noqday xidigii dhaliyay goolka ugu dhaqsiyaha badan ee tartankan ama tartanka Champions League ee sanadan kulan xalay kooxdiisa ay la ciyaartay naadiga Villarreal Vlahovic oo dhawaan galka ah naadiga Juventus kalena soo wareegtay naadiga Fiorentina bisha January ee aan ka soo gudubnay ayaa dhaliyay daqiiqadii 32 waxa uu goolkaasi noqday goolka ugu dhaqsiyaha badan ee sanadan laga dhaliyo tartanka Champions League wargeysida caalamka ayaana maanta qoraya in Dusan Vlahovic uu nasiib u yeeshay in magaciisa lagu qoro xidiga ugu dhaqsiyaha badan ama goolka ugu dhaqsiyaha badan ee sanadan ka dhaliyay tartanka Champions League guud ahaan daawadayaal intaas ayaan jeclahay inaan ku soo gabagabeeyo barnaamijka Top News anigoo daahir ayaan la socodsiinay Liibaan ay farsameynayay tan iyo kulanti dambe baadi barnaamijkooda la nabadgeliyo